Salaan sare dhammaantiin. Magacaygu waa Liibaan Cali Xirsi. Ku soo dhowaada taxanahan gaaban oo ku saabsan taariikhda qoraalka af Soomaaliga. Qaybteennii shanaad waxaan si gaaban uga soo taariikhaynay sidii ay ku sii socotay in af Soomaaliga loo adeegsado alifba'da Laatiinka. Gaar ahaan wixii ka dambeeyey sanadkii 1950kii. qaybteennan lixaad waxay ku saabsan tahay magacaabistii guddigii koowaad ee af Soomaaliga iyo howlihii loo xilsaaray. Morgan Nielsen ayaa arrinkaas ka diyaariyey qormo gaaban oo u dhignayd sidaan soo socota. Kadib markay Soomaaliya xornimadeedii qaadatay 1 Luulyo 1960kii, howshii qorista afka weli xal lagama gaarin. Afafka Talyaaniga, Ingiriiska iyo Carabiga ayaa sii ahaa afafka dhinaca maamulka looga adeegsado. Dadweynuhu waxay xilligaas ku baraarugeen dhibka ay leedahay in luqado shisheeye waddanka kuwa rasmi ah ka sii ahaadaan. Qaybo badan oo bulshada ka mid ah ayaa marba mar ka dambaysa ay u soo muuqanaysay baahida ku aadan inuu af Soomaaligu noqdo luqadda rasmiga ah ee waddanka. Isla sanadkii 1960kii bishii 12 ayay dowladdii Jamhuuriyadda Urdunka ahayd magacooday guddi uu hogaaminayay Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal. Guddigaas howsha loo xilsaaray waxay ahayd inay ka warkeenaan ama soo jeediyaan farta ugu habboon ee qorista af Soomaaliga loo adeegsan karo, iyagoo xoogga saaraya dhinaca farsamada. Guddigu wuxuu 15kii bishii shanaad 1961dii soo gudbiyey warbixintiisii uu ku soo jeedinayay farqorista af Soomaaliga ugu habboon. Sidoo kale guddigu wuxuu sheegay inuu tixgelin gaar ah siiyey xaaladda dhaqaale ee waddanku ku jiro iyo guud ahaan heerka uu marayo horumarka ama wacyiga bulshada. Guddigu wuxuu shacbi weynaha u qabtay 15 maalmood oo qof walba uu ku soo xareyn karo farta uu isleeyahay waa lagu qori karaa af Soomaaliga, taasoo lagu qiimeyn doono 17 shuruudood oo uu guddigu horay u sii dejiyey. Shuruudahaas kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa inay fartu phonetic ahaato, ama si kale haddii loo dhigo ay ku salaysnaato laanta cilmi afeed ee dirista codadka ama dhawaaqyada afka. Inay sahlanaato oo aysan xarfuhu yeelan astaamo dheeraad ah. Inay noqoto mid dhaqaale ahaan la awoodo, ama ay ahaato mid lagu qori karo oo lagu daabici karo qalabka waddanka yaalla. In loo adeegsan karo isgaarsiinta dhinaca taararka ama waxa loo yaqaano telegraafka. Inay noqoto mid si fudud loo baran karo. In loo adeegsan karo dhammaan lahjadaha waddanka looga hadlo. Isla markaasna fartaasi ay noqoto mid af Soomaaligu ku jahan go'an oo aan toos luqad kale looga soo minguurin. Su'aalaha la xiriira diinta iyo dhaqanka qayb kamaysan ahayn shuruudaha uu guddigu soo saaray, taasoo waafaqsanayd tilmaam bixintii guddiga loo siiyey fulinta howshan. Ugu horreyntii guddigu waxay qaateen tababar la xiriira ortograafiyada ama qorista saxda ah ee luqadi leedahay, taasoo ku salaysan aqoonta cilmi afeedka. Sidoo kale nidaamka taararka ama telegraafka oo waagaas dhinaca isgaarsiinta muhiim u ahaana way u kuurgaleen, iyo weliba naxwaha iyo phoneticska af Soomaaligana tababarka ay qaateen qayb bay ka ahaayeen. 18 farood ama alifba oo af Soomaaliga lagu qori karo ayaa muddadii uu guddigu u qabtay lagu soo gaarsiiyey. Dhammaan alifba'yadaas waxaa lagu qiimeeyey oo la marsiiyey 17 shuruudood oo guddigu horay u sii dejiyey. 18 farood ee la soo gudbiyey, 11 ka mid ah waxay ahaayeen alifba'da loo yaqaano farta waddaniga ama afka qalaad ku noqonaysa national script. 4 waxay ahaayeen kuwa far Carabiga ku salaysan, iyo 3 soo hartay oo Laatiin ahaa. Guddigu waxay warbixintooda ku iftiimiyeen inuusan wax xiriir ah ka dhaxaynin alifba'da luqaddu yeelanayso iyo diinta ay dadka afkaas ku hadlaa haystaan. Qaab wadar ogol ah ayuuna guddigii xubnaha muslimka ah ka koobnaa isugu raacay arrinkaas. Sidoo kale guddigu wuxuu caddeeyey inuu go'aankoodu ahaa mid damiirkooda ka soo go'ay, taasoo macnaheedu yahay inay fartu noqoto tan ugu habboon ee u adeegaysa danaha iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed.
guddigu wuxuu warbixintiisa ku sheegay in 11kii farood ee waddaniga ahaa ay jihada qoristoodu bidix ilaa midig sida farta laatiinka ah ahayd. tani waxay ka turjumaysay inay soomaalida garaadkooda daxsooni uu door bidaayo dhinacay farta laatiinku u qoranto. sidoo kale alifbaa'yadii ay soomaalidu halabuurkooda lahaayeen ama farihii waddaniga ahaa qaab ahaan waxay u dhowaayeen alifba'da laatiinka ah marka loo barbardhigo farta carabiga oo 4 meeloodoo meel bay farta laatiinka aad uga ekaayeen. dhinaca awoodda dhaqaale marka laga fiiriyo dhammaan farihii waddaniga ahaa waxay noqdeen kuwo aan la taageeri karin maadaama aysan suuragal noqonaynin in la bedelo makiinadaha qoraalka ama teebabka iyo kuwo wax lagu daabacaba. sidoo kale farihii carabiga ee la soo jeediyey guddigu wuxuu ku tilmaamay inay dhinacaasna tabaryari dhaqaale ay ka hor imaanayso oo makiinadaha qoraalka iyo kuwa wax lagu daabaco ee af carabigu ay tiradooda yar tahay soo iibsashadoodana ay aad qaali u tahay. guddigu waxay intaas ku dareen in tirada shaqallada af carabigu ay xadaynayso shaqallada af soomaaliga. iyagoo arrinkaas faahfaahin ka bixinayana waxay bogga 7 ee warbixintoodii soo baxday sanadku markuu ahaa 1961dii ku qoreen sidaan soo socota. af carabiga waxaa lagu qori karaa xarakooyin la'aan kuwaasoo u dhigma shaqallada gaagaaban. af soomaaliga haddii xarakooyinka laga reebo akhristuhu wuxuu ku khasbanaanayaa inuu mar walba ereyga macnihiisa uga qiyaas qaato qoraalka guud taasoo laga yaabo inay inta badan u suurageli weydo. dhanka kale marka laga eego xarakooyinka oo si joogtaha loo isticmaalana culayskeeda ayay yeelanaysaa. welibana waxaa loo sii baahanayaa ugu yaraan 2 shaqal oo af soomaaliga lagu sii dhammaystiro. guddigu isagoo isla arrinkan sii iftiiminaya wuxuu bogga 67 ee warbixintiisa ku sheegay sidaan soo socota. af carabigu wuxuu ka tirsan yahay bahda luqadeed ee semitiga. afafka semitigu waxay leeyihiin astaamo khaas ah. tusaale ahaan macnaha ereyga waxaa sida shibanayaasha oo badanaa ereygiiba wuxuu ku salaysan yahay 3 xaraf oo shibano ah halka ay hawsha shaqallada af carabigu ku kooban tahay dhinaca naxwaha taasoo macnaheedu yahay inaanan shaqallada la qorin. qof kasta oo naxwaha af carabiga yaqaana wax dhib leh ama dhib ah kalama kulmo garashada ereyada. tusaale ahaan inuu ereyga ka ta ba qoraalka ku dhex noqon karo kataba kutiba ama kutub balse qofkaan naxwaha af carabiga aqoonta u lahayn dhibaato ayuu kala kulmi karaa fahamka macnaha uu ereygaasi hadba u taagan yahay. qaab dhismeedka asaasiga ah ee af soomaaligu wuu ka duwan yahay kan af carabiga. shaqallada af soomaaligu kama haraan shibanayaasha ay la socdaan oo waa inay ereyga ka soo wada muuqdaan. haddii ereyga qoristiisa laga reebo shaqallada way adkaanaysaa in la fahmo. tusaale ahaan haddii aad ereyga sar far carabi ku qortid oo shaqalkana aad ka reebtid akhristuhu ma kala saari karo in ereyga laga wado sar sir mise sur maadaama far carabiga ay 3daas erey ee kala duwan ay isku si u qormaan. وهجاك صاحب بيال وحال إنتاس كسو جبجبيننا تحنهني عن أمجع درني تاريخ ذا قرالك أفسو مالك وحرجينا يا إن تحنهاني وقريب كنقول دونه فرقوهين سويالك تاريخ ذا فرسو مالك إسأرك اسمق النبأ وحيسله مع السنين نمانتين صو نبض هذا نبضي